mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka qabashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo lagu magacaabo Cabdikariin Cali Nuur oo ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa uu xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo shacabka reer Hirshabelleba ugu baaqay in ay siiyaan codka kalsoonida isagoo uu ballan qaaday in haddii ay doortaan wax walba uu qaban doono ay ka mid tahay hoolalka ay ku shiri lahaayeen baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ugu horeen wax qabadkiisa oo ka bilaabi doono waa kan musharax madaxweyne Cabdikariin Cali Nuur oo ka hadlaya arrimahaasi waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan dadweynaha Hirshabelle u diro fariin ah walaalayaal waxaan ahay musharaxii ugu da'da yaraa xildhibaan ah wasiir ah maaragtay engineer wax soo bartay ah inaad ugu doorataan codkiina taageeradiina aad maaragtay garab istaagtaan ana haddii aan ku soo baxo waxaan isku dayayaa inaan u hiiliyo dalka dadka iyo danta Hirshabelle haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ahay maaragtay nin Soomaalidu waxay tiraahdaa qowsaarka wax loo raacsadaa waa aaminsan tahay waxaan noqon doonaa qowsaar daacada u adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa maaragtay uma imaanin inaan maaragtay aan wax qabsaday waxaan u imid inaan wax idin qabto haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo idinku maaragtay rabaa inaan idin sheego oo ah isbedel rasmiya oo degdeg ah ayaan rabnaa inaan insha Allah tacaala Hirshabelle keeno isbedelkaas waxaa ka mid ah dhalinyarada inay u istaagaan xil kasta oo wadanka laga qabanayo dhalinyaradu waa waxa keenay isbedelka waxa la dhahaa isbedelku ma imaado isbedelka anaga ayuu naga imaadaa isbedel haddaan sugno ma imaanayo isbedelka wuxuu ka imaanayaa anaga dhaxdeena ayuu naga imaanayaa marka insha Allah tacaala waxaan idinka codsanayaa taageero buuxda hiil iyo hooba leh maaragtay ay garab istaagtaan waa balanteenu waxay tahay u hiili Hirshabelle haddii Ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh musharaxan ayaa musharaxii ugu horeeyay oo isa soo sharaxa qabashada xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Jubba Shabelle News magaalada Jowhar